xasuuqii 21 ruux ee lagu xasuuqay deegaanka Adhacadeye ee gobolka Sool xaaladda hadda waji kale ayay yeelatay xildhibaanada heer federaal ee matala dadkii lagu xasuuqay deegaanka Adhacadeye ayaa afka furtay magaalada Guraceel fariin ayaa laga soo diray waxaan loo diray maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo reerka lagu eedeynay inay xasuuqeen 21 ruux dhacdada ka dhacday deegaanka Adhacadeye ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya hadda waxa rabaa in la wadaago xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dadkii la xasuuqay oo si kul u hadlay xildhibaan Ilyas iyo sidoo kale dad kale oo iyaguna kamid ah kuwa ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo arintani ka hadlay xaaladda oo sida la filayay ka sii balaaratay ayaa rabaa inaan idin kula wadaago madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka jira inuu ergo u dirayo magaalada Nairobi si ay u soo qanciyaan madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale taliyihii hore ee asluubta Soomaaliyeed taliye Mahad waan idin wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijkeena waxa qayb ka noqon doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada Muusamareeb ujeedku halkaas uu tagayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor miyaa maanta iscasilayo waan idin wadaagi doonaa soo dhawaad saaxiibayaal dhacdadii lagu xasuuqay 21 ruux ee ka dhacday magaalada ama deegaanka Adhacadeye ee gobolka Sool ilaa iyo hadda xaaladdu waxay u muuqataa inay faraha ka sii bixiso iyada oo reer gaar ah markaasi ay u muuqdaan inay isu biri tumanayaan sabab la xidhiidha dadkii la xasuuqay dadka qaar ayaa arintan si taban iyo si toganba kaga falcelinayo iyadoo laga digayo in xaaladdu ay markaasi sababto inay isu bedesho dagaal qabiil oo aan dhammaan haddaba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo tirsanaya reerka hoose dadka la xasuuqay ayaa xalay warbaahinta la hadlay afka ayay furteen si kulul ayay ka soo hadleen ayay u hadleen dhinaca kale haween ku sugan magaalada Guraceel ayaa iyaguna dhacdadaasi xasuuqa ah ka hadlay مسؤولينta dawladda federaalka Soomaaliya maamulka waqooyi bari ilaa iyo hadda kaalintoodii ay ahayd inay gutaan ee ah in la soo qabto shakhsiyaadka ku lug lahaa xasuuqaasi ilaa iyo hadda ma aanay qaan hadda waxa rabaa in aqoonta dambiga kula wadaago xildhibaan Ilyas oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Galmudugna ka soo jeedo sheegan inuu matalay ama inuu golaha baarlamaanka uu ku matalo dadkii la xasuuqay oo hadlay iyo sidoo kale ehlada dadkaasi oo iyaguna Guraceel ka hadlay ayaa rabaa oo arinta uu ka soo gudubtay Sool markaana soo gaartay gobolka Galgaduud ayaa rabaa inaan idin kula wadaago sidoo kale odayaal hadlay oo fariin cara ay ka muuqato warbaahinta la wadaagay qaybta dambe idin kula wadaagaya laakiin markaan aan fiirino maxaa ka jira wararka sheegaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ergo u dirayo madaxweynihii xilka laga tuuray ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen warar soo taray ayaa sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ergo u dirayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si ay u qanciyaan madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen oo hadda ciidamo ku haysto dowladka magaalada Baydhabo kaliya isaga lama qancinayo ee xitaa waxa la qancinayaa taliyaha guriga laga dhigay ee asluubta Soomaaliyeed hore u soo maamulay taliya Mahad oo ku magac dheer taliya shub ujeedada dawladdu ay ka leedahay waxa lagu sheegay inay tahay in aadan madoobo uu si nabada xukunka Koonfur Galbeed uu ku hogaamiyo maadaama kooxdan laga adkaaday dawladdu waxay doonaysaa inay qabiso ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre wuxuu maanta ku wajahan yahay magaalada Muusamareeb ee caasimadda Galmudug socdaalkiisa magaalada Muusamareeb wuxuu imaanayaa saacado kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qancisay Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug ee madaxweynaha dhamaaday in uu ka tanaasulo aragtidiisa ku aadaneed inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug warar soo taraya waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qancisay Qorqor inuu iscasilo xogta qaarna waxay sheegaysaa in uu tartami doono waliba si malxiis ah iyadoo Muusamareebna la geeyo doono musharax xilka Soomaaliya ee Liibaan Axmed Xasan oo ku magac dheer Liibaan Shur wixii amraasi ku soo kordho macluumaadada xiga ayaa kaga boqon doontaan ra'iisul wasaaruhu maanta ayuu tagayaa magaalada Muusamareeb safarkiisa iyo natiijada ka soo baxdana gobolka kuwa ugu horeeya ee hela ayaa noqon doonta waa la isdili jiray waxna waa dhici jireen qof waa la dili jiray qof aar waa u dhici jireen ayadaba taas ayadoon xaq ahayn laakiin in ma arkinin oo tira intaas la eg hal mar sidaas loo wada xasuuqo ay maanta aan wada aragnay sawiradoodii in xabaalo wadareed cagaf loogu qoday macnihii inta god la qaadsii waayay arrintaas waxay nagu noqotay arrin la yaab leh waana arrin aan aad iyo aad uga xanuunsanay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi ma akhada walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamman runtii waxaan halkan galabta u taagannahay inaan ka tacsiyeyno kana hadalno dhacdadii ka dhacday maamulka waqooyi bari gaar ahaan degmada Adhacadeye oo dad iskugu jira cuqaal
haween iyo dad kaleba lagu laayay 21 oo dil wadareeda xabaalo wadareedna saakay loogu sameeyay magaalada Laascaano runtii waxay ahayd dhacdo qalbiyadeena gilgishay aad iyo aad aan ula yaabnay dhacdo ugub ah lama filaan ah oo aanan filaynin in sidaas dad tira intaas la eg hal mar dad waa la isdili jiray waxna waa dhici jireen qof waa la dili jiray qof aar waa u dhici jireen ayadaba taas ayadoon xaq ahayn laakiin in ma arkinin oo tira intaas la eg hal mar sidaas loo wada xasuuqo ay maanta aan wada aragnay sawiradoodii in xabaalo wadareed cagaf loogu qoday macnihii inta god la qaadsii waayay arrintaas waxay nagu noqotay arrin la yaab leh waana arrin aan aad iyo aad uga xanuunsanay dhacdadaas shalay dhacday shalay markii akhbaartaasu na soo gaartay ilaa iyo saacaddan oona hadlayno waxaan ku jirnay shirar isdaba jooga shalay intii dhacdadu markay dhacdo macluumaadka aruurintiisa xalaan fadhiisanay saakaan shir kale la fadhiisanay madaxweynaha maamulka waqooyi bari firdhiye iyo mas-uuliyiin kale oo runtii maamulkaas ka tirsan ayaan saaka aroortii is aragnay duhurkii sidaas oo kaleeto shiraraan galnay galabtadan waxaan soo gogol galay dee maamulka waqooyi bari qabiilow ka kooban yahay qabiilka dhul bahantaha ah oo runtii iyagu ay ka dhacday dhacdada dhibka meesha ka dhacay cuqaashoodii iyo mas-uuliyiintoodii iyo xildhibaanadoodii ayaan noo yimid galabtaan isqaabilnay runtii aad iyo aad ayay uga xumaayeen dareen aad iyo aad u sareeya ayay ka muujiyeen dadku waa dad ehela waa dad wada dhashay waa dad boqolaal sano isla deganaa xigto iyo xigaalo ah laakiin dad wax magarato ah oo wuxuush ah ayaa meeshaas waxay ka sameeyeen xasuuq runtii deegaan dhan lagu soo qaaday muddo saacada oo kooban lagu baabi'iyey marka arrintaas iyadaa way garaawshiyey ka keeneen aad bay uga xumaayeen annaguna runtii dareenka noocaasa iyo ka tacsiyeynta ay noogu yimaadeen waa ku mahadsan yihiin waxaana ku ballannay laba qodob oo aada muhiim u ah waa midda koowaade in wixii dhacay la xakameeyo oo intaas aysan nooga dhaafin oo dad kale nooga dhimanin qodobka labaadna inaan isugu tagno maamulkii waqooyi bari haddii odayaal ay yihiin iyo hadday mas-uuliyiin dowladeed bay yihiinba heerarka kala duwan in meeshaas laisugu tago meeshii wax ka dhaceen in wax lagu dhayo wax lagu hagaajiyo runtii waa iskaga wada tacsiyeyneynaa waa tacsi nagu wada dhacday sidoo kaleetana insha allah waxaan rajeyneynaa arrintaas inay daawowdo dadkii wuxuushta ahaa oo waxmagaradka ahaa shaydaanku ka qaalib noqde falalka bahalnimadaa ku kacayna in lasoo qabto hal meel looga soo wada jeesto cadaaladana ay wajahaan sidaasna aan arrintaas iyadaa ku dhaqno runtii kama aanaan seexan kama aanaan istaagin sidaasaan ugu wada taagneen mas-uuliyiinta kala duwan oo xildhibaano leh oo odayaal leh oo ganacsato leh oo waxgarad kasta leh ee runtii u istaaga shalay ilaa iyo maantana aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinayaa waxaan rajeynaynaa inta dhimanna inaan dhammaystirno aad iyo aad baa umahadsantahay faqashinna allaha sameeyo kale wallaahi bilaahi tallaahi 10 beri haddaan laga soo jawaabin adugu wajigaad badna marsata laakiin anoo beeka amsitaan kugu imaanaa shalay markaad caararaydaana layda xasuuqa ay dhibkiidii haysta xanuunkiidii haya anaga maanta nahaya insha allahu tacaalana waa laga jawaabi doonaa inaa madaxa hoos u foorro iscashiisha ma kaa yeelayno mana kaa aqbalayno inaa bannaanka u soo baxdo xaquuqda shacabka raadido la xisaabtanto meel walba aad la tiigsataan kaa doonaynaa inaad madaxa hoorido ma kaa doonayno waxaan ka xumaanay oo xoolka noogu wacan dadkii la xasuuqay sida xoolihii dhibaatada loo geystay nifaqashini inaad indhaha ka daawatiin waa doqonnimo idinka inii gaara firdhiyo waad isqaawisee maryaha isku qabo qarankii waad ceebaysatee maryaha isku qabo maatadii waad qalatay ee maryaha isku qabo qarankii waad ceebaysee maryaha isku qabo qalbiganaga waad jabisee maryaha isku qabo reer balayow balaayaa taqaanaan baasiyo gododqodid baa taqaanaan ilma birays baa taqaanaan habla dilid baa taqaanaan hog iyo hontoolay baa taqaanaa maras dubato ma talaaye maras dubato ma talaaye shacabka reer faqashini maxaa dhahdeen xabadana allaha naga joojiyo xabadana allaha naga joojiyo xabadana allaha naga joojiyo horta waan ka xunnahay
walaalaheen dhibka soo gaaray boqolkiiba boqol waan ka xunna waxaan sheegayaa horta intii naga baxday ilaahay naxariista janna firdawsaha siiyo dadka la dagaal intay ka baxeen sabr iyo iimaan Allah siiyo dadka la dagaalay oo u mooda caawa inay la dagaaleen qabiilna qoys ay la dagaalameen horta ha ku xisaabtamaan qoys ay la dagaalameen qabiilkoodii waa soo socdaa wallaahi billaahi tallaahi haddaan laga talin oo aan dawladda Soomaaliya ka talin wallaahi billaahi habar gidir waa ay dhaafto oo hawiye waa ay dhaafto oo cayr waa ay dhaafto wallaahi billaahi xaniyay tagay baasho waxaa soo haray naagaha wajiga ta badnada marsada dhahaaya faqashinna Allah sameeyo kale wallaahi billaahi tallaahi toban bari haddaan laga soo jawaabin adoo wajigaad badna marsata laakiin anoo beeka amsitaan ku imaana ha ka gilgilan ya wajiga aad badna marsatay anoo beeka aan wataad ari cadeeyo iga sugay yaanaan isweyn maalintaas waxaa soo hara dadka hawiye ee habar gidir ee cayr waxaa sidiina magaca waa la ilaaliyaa meesha waxa noo jooga waa qabiil annaga matalaan waa inaan ka dhiidhino saqiir kabiir gabar hooyo oday wiil waa inaan ka dhiidhino kii hanti bixi kara kii hub bixi kara kii xabad ridi kara wallaahi inaanan u kala harin haddii aan laga jawaabin maba qabsanayo bil ma qabanayo laba ma qabanayo sanad ma qabanayo haddaan laga jawaabin 15 beri rag iyo dumarba waa la is arkaa naagay wajiga badnada marsadana si gaara anaa ugu kulul halla xisaabtama halla ogaado halaga hadlo halka waxaan tacsi uga diraynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen marxuumeyntii xasuuqa xun oo uurmareebtada oo ku dhaca midda kale waxaan maqli jiray waxaas waa la berbereyna roone xasuuqa ka dhacay ari cadeeye waxaan leenahay haddaan bahweynta cayr bahweynta habargidir bahweynta Soomaaliyeed waa wax xun waa waxaan la arag waa waxaan la maqlin waxa soo haray nin garaad isku sheegayo gurigiisu duminaya la arkay shala markay la calaacayo yaa tolahay la lahaa ninkaad garabka ka dhigayda inaad gowracdo sidii ida magaciisi waan ka xunnahay reer bari anu ma kala soocayee reer baliyo balaaya taqaanaan baasi qodid baa taqaanaan ilma birays baa taqaanaan habla dilid baa taqaanaan hog iyo hontoolay baa taqaanaan idin ma kala soocaynee waxaad layseen waa maras ee ma aha rag marastana rag baa waardiyeysanayay oo meesha ku ogaay qabiil meesha lagu ogyahay ahaayeen gud ma aha gabar ma aha insha Allah haddaanan ka jawaabin jawaabteeda allana waa idin siinaya cududna waa la idin siinaya insha Allah binillaahi kariim bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhamaanteen intaan oo haweenkii gurceela iskugu soo baxnay dhibaatada iyo masiibada loo geystay walaalaheen waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalahayga habargidir qabiilka aan ka dhashay tolkayga haday tahay ganacsatay haday tahay mas'uuliyiin ka tirsan heel federaal ilaa heel maamul goboleed waxaan leeyahay dhibaatada loo geystay nifaqashini inaad indhaha ka daawatiin waa doqonnimo adinka inii gaara ka dhiidhiya garab istaaga ninka la faqashini uma oo baahna faqashini tacsi uma oo baahna calaacal xaniyo u baahan yahay garab istaago u baahan yahay faqashini waa jufo kamida cayr waxayna meesha ku joogan magaca hawiye iyo magaca habargidir ay ku joogan waana junfe toban oday ka sii degta cayr waxa la dagaalayana waa maamul goboleed ee ma ahan qabiil ama ma ahan junfo ee waa maamul goboleed masiibada ku dhacda walaalahan aad baan horta ugu xunnahay waxaan baaq weyn u dirayaa ganacsatada habargidir waxaan baaq weyn u dirayaa mas'uuliyiinta habargidir haday hub tahay haday garab istaag tahay haday lacag tahay waxaan rabnaa inaan ku garab istaagno walaalaheen faqashini oo aan ka dhidhino dhibka loo geystay maanta dhibka loo geystay faqashini hadii aan laga dhidhin waxay ku noqohee masiibo joogta oo aan ninka la yiraahdo aan ka harinay ku noqohaysa waxaan rabnaa marka inaan garab istaagno aad baan ugu xunaa dhibka ku dhacay aad baan ugu xunaa wixii loo geystay dad guna oo wax la daga aan lahayn oo wax la garabsada aan lahayn oo wax la dagaal aan lahayn oo wax dhul loo xoreeyo aan lahayn ay deegaan leeyihiin oo ninka la yiraahdo dhibaatadaas u geystay waa dad maamul iyo dawlad la dagaale waxaan rabnaa habargidirey inaad garab istaagtiin maanta qaasatan talkay cayrow maanta inaad ka jiiftiin faqashini waa adinka doqonnimadiina faqashini maanta dhibka loo geystaa
faqashinin dhibka loo geysaa maanta inaad ka jiiftiin waa inii damiir xumo istaaga kaca garab istaaga xaniiyaha ay ninka la yiraahdo loo sheegta maanta waa inaad dul dhigtiin qabiil habar gidir la siman oo ka weyna la dagaalamaya ayagoo 10 jeer ka degay 10 oday ka degay hoos uga dagay cayr oo junfo ka sii junfo ah waxa loo adeegsanayaa hubkii dawladda federaalku ay bixisay ee ay siisay maamulka waqooyi bari loo adeegsanayaa waxaan rabnaa habar gidiray qof kasta oo habar gidira qof kasta oo cayra qof kasta oo hawiya waajib ka saaran yahay difaaca faqashini ari cadeeyo qof kasta oo hawiya oo ka saaran yahay ninka la yiraahdo xil ka saaran yahay waayo meesha waxay ku joogaan magaca hawiye waxay ku joogaan magaca habar gidir ayagay matalaan ay dhibka loo geysaa inay ka dhiidhiyaan qof kasta oo habar gidir ayaa looga baahan yahay qof kasta oo hawiyaha looga baahan yahay qof kasta oo hawiyaha la raba inuu garab istaago qofkii maanta calaacal uma baahna maanta tacsi uma baahna masiibada nimankaas ku dhacda ka dhiidhin iyo xaniiyay u baahan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan maraynaa maalintii garaadku carabku isku dhaganaa oo lahay war dagaalka gala oo lahay horta maanta maraynaa waxa waaye aan cadeeye horta dad habar gidir oo cayra oo caroolaha oo ayaanla ka sileexda horta lagu xasuuqay mana aan qabiil waxa lagu xasuuqay qoys ma fahanteen shalay markaad caaranaydaan leedahay xasuuqay dhibkiidii haysta xanuunkiidii hay anaga maanta nahaya insha Allah ta'ala waa laga jawaabi doonaa mana ahan maalin boqol ay ma taqaana bahasho ay ugu jirtaa waxa waaye insha Allah ta'ala sida carabku isku ka dhagi doona gala jaamac kama hadalin dadka la xasuuqay carabku sabab isku ka dhagi doona aanaduna ma daqowdo waxaan halka isugu nimid aniga ka tirsan ururka hooyooyinka degmada Guraceel waxaan halka isugu nimid oo ka dhiidhilanay waa maxay tahay xasuuqii ka dhacay ari cadeeye ayaa isu keenay halka isugu nimid waxaan la xumaanay oo xoonka noogu wacan dadkii la xasuuqay sida xoolihii waxaan ka xumaanay oo xoonka noogu wacan dadkii la xasuuqay sida xoolihii waxa weeye ari cadeeye maantii oo u gurmay hawiye u gurman hayay oo maxay tahay oo dhisayay inuu anaga gumaado oo hubka nagu gumaado uma aanan dooran waxaan u dooranay maamul dhisan inaan ka dhigno markii ay ka gabadeen dadkii garbaha u ahay oo asiga ehelkiisa ahay ay u soo bixi waayeen wuxuu u soo baxay oo wasiir iyo maxay tahay madaxweyne iyo maxay tahay xildhibaan iyo wax alla wax meesha hawiye ay u tageen hawiye oo dhisa hawiye ahayeen hubkii loo siiyay inuu maamul goboleed ku noqdo oo ku ciilbaxo maanta inuu anaga nagu gumaado looma siin faqashini tolbow leeyahay waa nin hawiya waa nin hiraaba waa nin habar gidira waa nin cayra ciidan iyo cudud buu leeyahay waxaan doonaynaa dabkaas in la damiyo waxaan doonaynaa in la damiyo waxa weeye maxay tahay firdhiye haddoosa ka dhiidhin ee dadkii oo xasuuqay oosa meel soo saarin waxaan tusaynaa hawiye iyo hiraab waxay yihiin baa la tusayaa iyo habar gidir inay ciidan leeyahay calaf leeyihiin ninkii la xoreeyey maxay tahay ishaag meesha oo joogo la xoreeyey laascaano yaa oo la yiraahdo maxay tahay ishaag u ahay maxay tahay ishaag wada hogaamiyaha u ahay oo militarigu ahay oo ciidanka u hogaaminayay cidiisi way wuxuu xasuuqay mana dhimana waa nool yahay haddawna imaanaya bismillaah awalan waxaan mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala meeshan isugu kaana keenay waxaan rabaa inaan tacsi tiiraanyada ka diro dadkii birmigeydada iyo isugu jiray ragga iyo dumarkaba ee lagu geystay xaqsuuq lagu geystay ari cadeeye aan rabnaa in halkan tacsi tiiraanyada looga dirno anagoo ah ururka hooyooyinka degmada Guraceel waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo dadka birmigeydada ah ee maxaa tiraahdaa la xasuuq loo geysanayo ee dhibaatada loo geysanayo ee maxaa tiraahdaa ayagoo qabiil yar ah qaranku la dagaalamayo wax loo dul qaadan kara maahan nabadaan ku baaqaynaa annaga dagaal ma rabno dhibaato ma rabno isku magaciiseen ma rabno dhowcilaha maxaa tir TikTok-yada isu soo dhigaayo hadda iyo kow iyo niyuur faqashin dhahaya maxaa tira ayagana ilaahay aqligooda ha soo celiyaan leenahay annaga dagaal ma ku baaqayno nabadaan ku baaqaynaa nabad hadii la waayana oo nabad la waayana Soomaaliya waa istaqaanaa nin walba doorka oo dagaalka kale yahay waa la yaqaanaa hadii nabad la waayo laakiin annagu nabadaan leenahay hadii la waayana dadku waa is yaqaanaa firdhiyo waad isqaawisay maryaha isku qabo qarankii waad ceebaysatay maryaha isku qabo maatadii waad qalatay maryaha isku qabo qarankii waad ceebaysay maryaha isku qabo qalbiganaga waad jabisay maryaha isku qabo hooyo waa hooyo meel bay joogtana waa hooyo waxaan leeyahay ninka la yiraahdo tutor aadan xildhibaanka baarlamaanka
haddii warka baraha bulshada la soo dhigay ee la leeyahay waa is casile ay run tahay aadan ka noqo go'aankaas xilliga dadkaaga u dacwoon lahayd u istaagi lahayd xaquuqdooda cod dheer iyo cod gaaban aa ku sheegi lahayd la taagay ina madaxa hoos u foorro is cashisho ma ka yeelayna mar ka aqbalayno ina banaanka u soo baxdo xaquuqda shacabka raadido la xisaabtanto meel walba la tiigsataan ka doonayna inaad madaxa hoorido ma ka doonayno mana aadan hoorino doqonnimo ma aadan hoorinine waxa tabataada og laakiin banaanka u soo bax xaquuqda shacabka raadi shacabka la mid noqonina asagana intaas aan leenahay